السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة يا عافيمات تاما يعني دين رجينا لوس كان ولوس برشاد الصومالي دا عن كدحة أما very common وضدك الصومالي دا يعادوا يقانا أيا وحويا لوس ككليا برشاد إنه وكبدا يهيا في بلاتيسو يهرتاك هاي كريان لكن waxa jirta inta badan kama sheekayna lawskan faa'iidooyinkiisa caafimaad waxtarkiisa caafimaad inta badan kama sheekayno dad badan oo inagu soo mishin kareynaya ayaan arkay oo lawskaas maxaa din badan uga soo hadli weyday waa laws ragu ka aaminsan yahay wrong perception fara badan oo inta badan ay isticmaalaan xilliyada guurka marka dareenku uu ka yaraado kuwa siigaysan jiray iyo kuwa kale iyaga qudhooda ay hoos u dhigtay awoodooda raganimada gogosha ama galmadu ragaas oo aad u aaminsan in lawskani markiiba si degdeg ah uu biyaha cirka u marinayo hormoonka testosteronka uu markiiba aad u kicinayo awoodooda raganimada markiiba uu laabayo laakiin xaaladu sida ma aha waxtar caafimaad uu leeyahay lawskani oo raga waa uu taraa oo uu siiyaa nafaqooyin fara badan oo dhinaca gogosha xataa uu siiyaa laakiin heerkaas ay ragu ina sida aadka u xad dhaafka inaad u sii aaminto in haddii aad isticmaasho shahwadaada tiradeeda iyo tayadeedu ay degdeg u buuxsamayso haddaad isticmaasho in dareenkaagu 100% noqonayo haddaad isticmaasho inaad markaas awoodaada raganimadu ay 100% noqonayso qaabka noocaasa taasi waa mid markaa xaqiiqdii ayay ka durugsan tahay oo maaha waxa factiska ah ee gudbinaya lawskani hal arrin baynu insha Allah doonaynaa oo xagga ragga uu faa'iideeyay inaynu maanta soo qaadano oo aad iyo aad muhiim u ah lawskan marka kooban waxyaabaha laga sameeyo waxa kamid ah subagyada saliidaha cuntooyinka lagu darsado dux aad u badan buu leeyahay duxda aadka u badan saliidaha uu leeyahay ama duxda uu leeyahay waxa kamid ah polyunsaturated fatty acid saliid ama dux la yiraahdo ayuu leeyahay oo haday saayid u badato wadnaha dhibaato u keeni karta waana sababaha inta badan aynu uga wareegaaleysano ee aynaan markaa u soo bandhigin maadaama oo wax caafimaadka dhibaato u geysanaya ay ka iman karaan inkastoo dhaqaatiirtu ay tilmaamayaan yani hadii xadiga uu isku badiyo oo xilli kasta har iyo habeenba uu isticmaalo ayuu bay khatartaasi iman kartaa waxa hadaba jirta marka si macquul ah qofku uu isticmaalo lawskan faa'iido caafimaad oo laga helo dhaqaatiirtuna meel sare ay dhigaan faa'iidada caafimaad ee laga helo ragana u wanaagsan ee xagga dareenka ragga u fiican waxa weeyaan xanuun la yiraahdo glycemia ayuu la dagaalamaa oo dagaal weyn la galaa lawskani glycemia waa dhiigeen oo sonkortu ay ku badato waa xaalad hadii uu qofku sonkorta iska yareeyo fadhiga iska yareeyo jimicsi uu sameeyo uu la dagaalami karo laakiin hadii ay sii socoto waa xaalad keeni karta xanuunka la yiraahdo diabetes ama macaanka glycemia xanuunkaas marka la dagaalama marka inta badan waxa jirku inuu iska saaro sonkorta saayidka ayaa lawskan uu jirkeena u saamaxa marka dhaqaatiirtu waxay soo qaadanayaan dadka lawskan isticmaalaan inay very low risk ay u yihiin ama khatarta xanuunka macaanka oo aad iyo aad u yar yahay ama xanuunka macaanku aanu kuba dhicinba xanuunka sonkorowguna wax kasta oo ka fogeynaya waa wax kasta oo raganimadaadii u fiican sababtoo ah ragga hadii uu ku dhaco xanuunkaas sonkorowga ama macaanku dareenko shahwadoodu hoos bay u dhacdaa hadii aan insuliintooda la controlin hadii aan xanuunka xilli hore aan control lagu sameeynin oo aan xilli hore la manage garaynin xanuunka macaanka ama sonkorowga raganimada ninka dhulku la gala waana xanuunada kalooniga ah ee ugu waaweyn ee raganimada ninka baabiya marka ninku markuu doonayo
inuu xanuunkaas macaanka oo kale uu ka hortago midhahan lawska uu qaadan karaa oo uu isticmaali karaa faa'iidada caafimaadna qaabkaas ayuu uga heli karaa intaas ayaan ku soo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.